السلام عليكم soo dhawaada mar kale waxaan ka sheekaysanaynaa arrimo inoo muhiima inaga dhalinyar ahaan anigu idinka tirsanay hadda laga bilaabo kooxda halka fadhida way naga wada weyn tahay inaga isku daa hadda marka si fiican baan sheekaysanaynaa oo dhaba insha Allah waxaan ku faraxsanahay inaan helnay fursad fiican oo aan mustaqbalkeena kaga sheekaysano qofku marka uu korayo uu dhalinyar yahay waxyaabaha ugu muhiimsan noloshiisa waxa koow ka ah inuu helo wacyi war akhbaar inuu tala hela ugu muhiimsan dadkeenii hore way ka mahmaahi jireen waxa la oran jiray tala la helaa war la helaa tala la helaa soo saamayn talada iyo go'aanka lagu meel maro waxay ku xidhnayd in qofku uu informed yahay oo maskaxdiisa war hesho inuu qofku wacyi ku filan haysto markaan korayna daayaheenan oo kale aan joogno waxyaabaha ugu muhiimsan noloshu waxa weeyaan information inaan wacyi helno inaan war helno inaan ogaalkeenu u dhisnaado ta ugu horeysa ugu mudani waa taa number 1 marka caaw waxaan iskugu nimanay inaynu ka sheekaysano waxaan sirahayn dadka badankiisu markay sheekeynayaan gaar ahaan dadka successka iyo guusha iyo libinta ka sheekeeya waxay yiraahdaan sir baa jirta lagu guuleysto Soomaa okay inaga waxa laga yaabaa dhalinyar ahaan gaar ahaan dhalinyaradeenna Soomaalida in badan rabtay inay wax qabsato laakiin duruufo badan oo ka hortaagan arkaysa marka guusha laga sheekeynayo qof waxbarashada ku guuleystay qof dhaqaale sameeyay qof ma aragtay waxyaabaha adduunyada yaalla dadku ku hamiyo qayb ka mid helay marka qof guuleystay oo wuxuu isku dagay ku guuleystay laga hadlayo waxa la yiraahdaa sirta guushiisa waa inaan raadinaa marka dhageena way ku badan tahay sir iyo guul labada eriso inaguma badna labadaas way nagu badan Soomaa the secret to success sirta guusha maxaa ka dambeeya guushiisa qofkaas muxuu waxa u gaaray kan muxuu haray waxaan rabaa inaan ka sheekaysano oon isla qirno inaanay jirin sir lagu guuleystaa there is no secret to success taasaan rabaa caawa inaan isla fahanno laakiin waxaan rabaa intaan madaxa ka saarno madaxeena ay gasho inuu guushu ay ka xigto system not a secret kaama xigta guusha sir iyo wax la qariyo oo dadka qaar una ay og yihiin oo dadka qaar una ay garanayaan dadka garanaya una ay guuleystaan sida maaha caawa laga bilaabo meel ku qoro halka gasho ayida markii ku dardaaraysay markaad yareed waxa yaray ku siiso halkaas aad gashan jirtay Soomaa meelada ku qoro sir ma jirto lagu guuleystaa waxbarashadu sir lagu guuleysta male dhaqaaluhu sir lagu guuleysta male jaamacadan aad u soo socotaan ee University of Bosaso sir lagu guuleystaa male there is a system to success waxa jira qaacidooyin iyo formulooyin iyo tabo iyo tilmaamo hadaad raacdo aad guuleysanayso it's a system not a secret inta ma la fahantaa sir ma jirto wax sir ma jiraan waxa jira system qof kasta oo aragto oo garanayso oo nolosha meel ka gaaray ama nolosha siyaasadda nolosha dhaqaalaha nolosha waxbarashada qof kasta oo arkayso u malaynayso inuu guuleystay wax qarsoon oo sira oo aan la garanayn ma hayo don't think sida ha u malaynin waa qalad aniga sida aaminsanaa barigii hore qof walba waxaan soo jiray maxaa ka qarsoon u sameeyay no sir ma jirto system baa jira inta ma la garatay haddaad la garatay haade imsa ila faantay gacanta taagantii la faantay all right waa ku faraxsanaynaa faanay waxaan rabaa marka caawa inaan ka sheekaysano what is the system to success war system kan la sheegayo qaacidooyin kan la sheegaya waa maxaan sameeynaa si aan waxaan ka fikirayo noloshu waa laba jeerun marna waxaad raadinaysaa madaxaagu ku dhex jira waa sawir oo waa khiyaal oo waa fikir oo waxaad isleedahay waxaas madaxaagu kugu jira marna wixii ayaa gacantaada ku jira oo waad gaadhay it's just that ama waa madaxaagay ku jirtaa waa sawir ama waa ficil oo gacantaada ku haysaa labadaasi markaa midina waxa weeyaan mid dunida khiyaalka yaalla ee maskaxa waa fikir waa dareen waa hami ma dhici wali ka dhabtiina waxa weeyaan kaas oo dadka dunyada ku noolna labadaasi u badan yihiin ama qofkii sawir buu haystaa oo arkayo hiraal baa jira meel baa u sawiran meel buu ku socdaa meel buu arkayaa halkaas wixii uu arkayay xaggan ay uga jiraan qofna waa waxa qof ka dhabeeyay qofina waa qof saddexaad oo labada dhexdooda jooga sawirkii buu dhabeyntiisa ku mashquulsan yahay inta kii u dhaxeeyay ma aha qof inaga mid ah mana aha inuu inaga mid noqdo waa qof nolosha ka dhacay oo aan joogin khadkii lagu soconayay marka ma rajaynayeen qof inaga mid halka joogo
waxaan rajaynayaa in qof walbo inaga mid uu saddexdaa u yahay ama sawir buu haystaa oo maskaxdiisa ku jira waa hami buu haystaa rajuu haystaa waxbaa gubaya waxaasuu arkayaa way u caddahay meeshuu u socdo vision buu leeyahay aragti meel baa u qoran uu is leeyahay halkaasaan tagayaa qofna waa qof ficilkii qaaday oo halkaa uu tegaya u qoran raba inuu shaqadeedii buu wadaa he's in the process shaqadii buu wadaa uu ku jira qofina waa qof intuu sawirkaa maskaxdiisa ku jira caddeeyey shaqadii ay uga baahnaydna sameeyey natiijadiina haya halkaa kuma dhammaanaysa laakiin natiijadu way baaba'aysaa haddii aan shaqadeeda la wadin maintenance baa la idhaha sii wadid halkaad joogto hoos baa uga dhacaysaa haddaad sii wadi weydo marka saddexdaasaa jira haddii saddexdaa meel ka mida aad joogto walaalkay oo walaashayay I'm sorry waxaad u baahan tahay gargaar degdega dabdamis baa u baahan tahay garow waa laga furay dabdamiska waan wacaynaa 911 ama 933 ama 888 waan wacaynaa laakiin ma rajaynayo waxaan rabaa walaalayaal waxaan arkayaa dad da'yar baynu nahay hami badan baa inagu jira wax badan baa maskaxdeena ku jira waxyaabo badan baa hareeraheenna yaallo waxaa aan arkayna rajaynayno dagaalku ah laakiin ogow dagaalkaas adigaa ku guulaysanaya noloshuna waa dagaalka waxa loo dagaalamayaa territory dhul baa la isku haystaa marka aad iska dayso waxaad raadinaysana waxa markaabaad helaysaa wax kasta oonad raadinayn it's a fight for territory life is a fight for territory taa ogow noloshu waa dagaal wax kasta oo aad raadinayso uu dagaalankayga markaad joojiso waxaad helaysaa wax kasta oo aanad rabin intaa mayla fahantay sii fududaynaya waa sii fududaynaya waxaad rabtaa inaad dugsiga ku guulaysato waxaad rabtaa inaad jaamacadda gasho waxaad rabtaa jaamacadda inaad natiijo fiican ka keento waxaad rabtaa inaad ardayga koowaad noqoto waxaad rabtaa inaad shaqo fiican hesho waxaad rabtaa inaad waalidkaagii caawiso you want to be successful inaad noloshan qof macno leh oo qiimo leh oo la tilmaansado marka wax wanaagsan laga sheekaynayaa rabtaa soo taa maataa rabtaa haddaad taa u dadaali weydo waxaad helaysaa wax kasta oo taa cagsigeega qof hadhay qof dadku markay hadal qaadan la yidhaha naga daay kaayo wixii wanaagsanaa ka sheekeeya qof tilmaan u ah maaragtay caajiska doqonnimada guuldarrada culayska liability baad noqonaysaa waxaad ku culusaanaysaa xaafaddiinnii qoyskiinnii bulshadaada dadkaaga you become liability waxaad iska noqonaysaa qof dulsaar ku ah dadka waa marka waxaad u dagaalamaysa aad iska dayso maanta markaa dagaalkaasaan ka sheekaynaynaa waa innaga isnidhi nolosha iyo xagga sare ee dadku ay rabaan inay gaadhaan sir lagu gaadhaa ma jirtaan isnidhi soo maa there's a system soo daalimidaan garan system iga daba dhabalaada system de system okay systemkaas sida lagu gaadhayaa waa inaad dagaalanto it's a fight waxbaad u dagaalamaysaa waxa aad u dagaalamaysaa haddaad dagaalkiisa joojiso waxaad helaysaa wax kastoo aanad u dagaalamayn right dagaalkaasaan rabaa markaa waxaan qaadanaynaa waxaan u diyaargaloobaynaa dagaal aan rabno inaan ku qabsanno ku conquire garayno waxa hamigaaga ee dadaalkaaga waxa niyadaada ku jira weyn kaasaan rabnaa inaan ku soo guulaysano so get ready for the fight hadda ila diyaargalow waxaan rabaa inaad diyaargalowdo waxyaabaha diyaargalowgaaga saanada u ah eed sii qaadanaysana waxaanaan tilmaami doonaa ka mid ah so number 1 waa inaad ready noqotay igu dha ready baan ahay I'm ready de I'm ready weli iguma filna I'm ready aad u dheh okay haddaad diyaar tahay waanaan ba qaadinaa let's go ina mari soo ma maqashaan ina mari okay ina mari aniga rubigu xidhay nin baa qalabeeye waayahay waxaan ku bilaabaynaa number 1 qofku inuu guulaysto oo noloshiisa waxbarasho iyo noloshiisa kale guud ku guulaysto waxa ugu horeysa ee ugu mudan ee kowga ah waxa laga yaabaa in dadku waxyaabo badan sheegaan waxa laga yaabaa in dadku meelo kala duwan ka raadiyaan guulaha laakiin ta koobaad ku bilaabayso dadaalkaad wax ku noqonaysaa waa inaad kurka yare kugu rakiban soo saxdo madaxa yare kugu rakiban inaad soo saxdo kurka yare inta yare madaxaaga dad ka adkaato noloshaada ka adkaanay marka inta yare madaxaaga san ka hadlaynaa madaxaaseen uga adkaanaya madaxaaga waxa ku jira waxyaabaha ugu muhiimsan ee jidhkaaga ka kooban yahay waxa ka mid ah number 1 maskaxdii waxa ka mid ah fikirkii waxa ka mid ah hamigii waxa ka mid ah indhihii waxa ka mid ah maqalkii waxa ka mid ah hadalkii sax so meesha xubinta ugu muhiimsan noloshaaduna
waa maskaxda waxa inaga iyo dadka kale inaga iyo xoolaha ina kala sooca iyo abuurta kale waa maskaxda noloshuna waa dagaalka koobaad ku soo guulaysanaysaa it's in the head waa dagaalka madaxaaga ka dhex socda markaan meelaha ka hadlay waa dhegaysataan waad maqasheen anigoo leh adiga ka soo xorow adiga ka soo adkow adiga soo dhaaf waxaasaad way nagu waad maqashaan number 1 dagaalka ugu horeeya ee aad ka soo meeshaad ka soo bilaabaysaa maaha xaafadiina maaha maaragtay jaarkaaga maaha kooxdaad u ciyaarto maaha gabdhaha jaarka tihiin it's not waa madaxaaga dagaalka ugu horeeya halku ka soo bilaabmaya waxaa la rabaa madaxaagu inuu noqdo madax ay u cad horta madax xamila laynaga rabaa we need to dream we need to have ambition we need to have vision aragti inaad leedahay eg ma dhalin kartid gool aanad arkayn ma badin kartid ciyaar aanad garanayn ma badin kartid waxaanad arkayn ma soo taaban kartid ustaad cajaba hadda kaali aragti haddaanad lahayn oo vision aanu jirin haddaan meelaad arkaysa aanu jirin you no go nowhere haddaanad garanayn meesha u socoto imagine hadda ragoo kale kubad baynu ciyaaranaa ka soo qaad garoon baynu tagnay garoonkaan ciyaaranaa goolal ma leh waxaa la yidhi ciyaaloo kala badiya see u kala badinaa maxaan ku kala badinaa xageen ku laagnaa kubadda nowhere meelna marka dadka qaar baa gaadhi fuula gaadhigaa aad bay wadaan speed waalan bay ku wadaan xawaare aad u sarreeya ku wadaan haddii la idhaha xaggee tegaysaana waxay ku leeyihin I don't know ma garanayo badankeenu dhalinyaray arrintaa aniguna idinka mid baanahay badankeenu waxaad moodaa gaadhigaan si daran u wadnaa haddii layna weydiiyo xaggee tegaysaana meelna baan leenahay ama meel uun baan iska tegaynaa baad leedahay xaggee ku ordaysaa meel uun meeshee meel uun it's not clear ma guulaysan kartid nolosha kuma guulaysan kartid waxbarashadaada meel kama gaari kartid jaamacadaada meel kama gaari kartid if you don't have a vision haddii meel kuu qoran oo kuu calaamadaysan oo aad tilmaansanayso ood abaaratay aanay jirin you're not going nowhere waa inaad qorataa horta meeshaad tagayso waa inaad tiraahdaa anu xaggaasaan gaadhaya let me tell you an example tusaale yar anigu saabsan baan nii sheegaya I was young anigoo yar oo boorama jooga waxaan ku hamiyi jiray inaan dadka hor hadle weyn noqdo markaa dadku waxay odhan jireen xaggeed ka hadli meel uun baan odhan jiray meel uun xaggeed ka hadli meel uun dadkeenu markay sheekaysanayaan qof qiiroonayaa ku iman saaxiibka ninkaad kubadda wada ciyaartaan oo kale ku iman wuxuu ku odhay waxba male noloshu iska adagtahay maalin uun baa guulaysan idasano maalintaa ma garanayo wuxuu ku guulaysanaya ma garanayo waxay uga baahan tahay ma garanayo so number 1 waxaan niga rabaa inaan madaxaas soo saxno oo madaxaasi uu yeesho meel u qoran inay maskaxdaada ku jirto vision meel kuu qoran ood leedahay anigu halkaasaan tagayaa eg la yaab male inaanad meeshaa garanayn it's fine waan koraynaa nolosha meel bay ka bilaabantaa it's a process maalinuun ma wada naaxaysid habeen keliya laguma naaxo habeen keliya laguma weynaanayo it's a process haddii aanad garanayn meesha it's fine waxba ha ka welwelin waad garan doontaa laakiin ogow tallaabada ugu horraysa ee lagaa rabaa waxa weeyaan inay meel kuu caddahay meelina kaa madowdahay soomaalida hore waxay odhan jireen nin meel u caddahay meeli ka madow hadduu qofku meel arkayo wax kastoo meeshaa ka soo sokeeya ma arkayo marka waxaan rabaa number 1 inaad meel qorato tiraahdo anu halkanaan gaadhaya anu waa tantaydii anu tanaan degay tanaan ka shaqaynaya this is my one haddii adduunyadoo dhan iga soo hor istaagtay tiraahdo ma noqon kartid waxaan odhanayaa ilkaha ku daawada I'm going to do it I will prove you wrong adigaa khaldan waan caddaynayaa inaad khaldan tahay waan samaynayaa berri markaan sameeyana adigaa i sacabtumaya watch me idaawo saaxiib so dagaalku wuxuu ka bilaabmayaa inaad aragti leedahay haddaanad aragti lahayn maba dagaalami karaysid ayaa la dagaalamaysaa dee xaggee u socotaa haddaad ma la tartami kartid qofka adiga kula fasal ama kula meel ama kula jaamacad ama isku xaafadaatihiin ama isku kooxtihiin ama saaxiibka tihiin ee meel u qoranta ee meel u socda he is going somewhere she is going somewhere meel bay u socotaa meesha u socotay gaadhaysaa adiguna ma lihid meel aad u socotid you cannot compete ma dagaalami kartid ma tartami kartid because adigu garoonkaagu gool ma leh goolaad dhalinaysaa ma jiro qofka gool uu dhalinaya ilaa kaa badinaya mar walba because isagu natiijooyin buu ku xisaabtamaya xariiq baa meel u yaalla wuxuu maalin walba isweydiinaya xaggeen u socdaa xagga inteen u dhawaaday inteen ka fogahay it's efficient so number 1 waxaan kaa rabaa meel inay kuu qoran tahay meel hadda meel ku qoro
ha yaraataa weynaato just have a vision meel ku qoro horta inaad meel u socoto ha ku caddaatay inaanad iska jooginuun inaanad iska jirinuun inayna caadi wax walba kula ahayn inay wax walba okay iska ahayn sida dadka uun inaanad ahayn dugsi uun baad galay jaamacad uun baad galay sida dadka oo maxaad waxaad u samaysaa dadkuba way sameeyaan hadu waxa laga rabaa inaad leedahay vision that's number 1 very important haddaanad taa haysan ma tegaysid meelna waa aniga idiin sheegay idinku yidhi haddaanad gool uuna lahayn garoonkaad ku ciyaaraysaa dee maxaad dhalinaysaa waad daalaysaa unadoo daalaad soo seexanaysaa that's number 1 laakiin ogow dadka badankiisu ma wada leh dadka badankoogu they don't know meesha u socdaan they don't know waxay eryanayaan ma jiraan haddii hadda aan qof inaga mida weydiiyo war xaggeed u socotaa what's your aim purpose-kaagu waa maxay maxaad eryanaysaa maxaa rabtaa inaad gaadho 5 sano maxaa rabtaa inaad gaadho sanad xaggeed u socotaa maxaa maanta u soo toostay haddii taa la weydiiyo dadka badankayga waxay odhanayaan niyow wax badan bal waxaa mid iga sheeg wallaahi way badan yihiin oo ma soo koobi karo dadka more general qofka aan marka dadka inta eeg waad aragteen markaan meelaha ka hadlay waxaan dhahaa dadka isku kalsoon ee qab kale isku kalsoon ee aaminsan naftooda ee aaminsan inay meeshay ku fikirayaan gaadhayaan ee inay dadaaluun ka xigo meeshay rabaan inay gaadhaan aaminsan waxa ka xanaaqa dadkaan isku kalsoonayn qofka isku kalsoon qofkaan isku kalsoonayn uu ka xanaaqa sax saamaade wuxuu ku odhanaya kaasi waa kibraani wuu buuq badan yahay waa buuq siraate wuu iska uun wuu xiinsan yahay gebigaba ninkan speed baa ku jaban maaragtay waxaad moodaa uun meel u socdo garan maysid qofka isku kalsoon waxa ka xanaaqa qofkaan isku kalsoonay saas si la mid ah qofka aragti leh vision leh ee meel u sawirantahay meel u qorantahay anu halkaasaan gaadhaya anu sanad gudihii waa inaan natiijadaa qabtaa 2 sano gudaheed waa inaan halkaa maraa 4 sano gudaheed waa inaan jaamacadda dhammeeyaa 6 sano gudaheed waa inaan xaggaa tagaa khasama inaad gaadhayaa waxa khasaba inay maskaxdaada dhexdeeda ku sawiran tahay you should have it there war geedkaba qofka geedka beeraya isagoo geed maskaxdiisa ka arkayo seedka geliya oo ininta midhaha geliya ciidda Soomaa qofkaas geed baa u sawiran laakiin hadda indhiisa kama arkayo laba aragti baa jira mid waxa la yiraahdaa eyesight midna waxa la yiraahdaa mindsight mid waxa la yiraahdaa qofku maskaxdiisa dhexdeedu ka arkaya meesha uu tagayo xaq uu socdo wuxuu rabay inuu gaadho it's here maskaxday ku jirta qofna waxa ma arkayo maskaxdiisa sawir kuma jiro waa eyesight ishiisu waxay qabato buu arkaya wuxuu arkaya nolosha yar kharibin dhaqaalo waalidka ku yar adag waalidku xanuunsanaya duruufta nolosha adag intaas oo ku qiyaasanay wuxuu aaminaya I'm not going anywhere anu meel lama tagayo hooyadii way dhimatay aabbo xanuunsanaya aabbahay lacag ma haysto anu xaafadaasaan ku noolahay all of that qiilkaas oo dhan buu arkaya because wuxuu isticmaalayaa waxa ishiisu qabato qofna maskaxdiisa dhexdeedu wax ka arka eyesight mindsight waa maskaxdaadu waxay arkayso iyo indhaagu waxay arkayaan ta muhiimkii maaha labadan ma ahaya labada indhood waxay arkayaan muhiim maaha waxa muhiim waxa qalbigaagu arkayo